maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo laba arrimood oo aad u waaweyn oo muhiimna xilligan hadda la maraya ah. midda koowaad shalay oo taariikhdu ay ahayd 27 Juun 2020 golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa ka dhacay laba arrimood oo aad iyo aad muhiim u ah taariikhda Soomaaliyana muhiim ku ah. midda koowaad waxay ahayd matalaadii gobolka Banaadir ee aqalka sare. midda labaadna waxay ahayd hadal jeedintii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. labadaas arrimood waa laba arrimood oo taariikhda muxuu ahay siyaasadda Soomaaliya iyo dawlad dhisidda labadaba laba arrimood oo muhiim u ah. markaan imaado gobolka Banaadir iyo matalaadiisa waxaan rabaa isbuucii la soo dhaafay golaha shacabka waxaa la hor keenay mooshin lagu soo bandhigay matalaadda gobolka Banaadir ee aqalka sare oo ku yeelanayo dadaal dheer kadib shalay waxaa la ansixiyey 13 xubnood oo mustaqbalka ku matali doona Banaadir aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah. dawlad dhisidda Soomaaliya maalinba meel bay soo maraysay, maalin walbana waxbaa ku soo dursoomayay, maalinna waxbaa ka muxuu ahay hagaagayay. waxaa bogaadin buuxda oo ballaaran aan u jeedinayaa senataradii aqalka sare ee markii horeba sharciga doorashooyinka ku soo daray gobolka Banaadir. waxay mudan yihiin ammaan dadaalkaas faraha badanna oo ay runtii Soomaalinimada ah oo ay ka geysteen. dadaal dheer kadib xildhibaanada aqalka shacabka ayaa iyaguna u guntaday in la meel mariyo arrintaas. mooshinka aan sheegaya ayay qoreen, waxay horgeeyeen faloorka baarlamaanka oo laga dooday, kadibna juhdi badan iyo dadaal badan oo muddo socday oo aan kala go' lahayn kadib golaha shacabku wuxuu ku guulaystay in la meel mariyo 13kaas xubnood. waa ilaahay mahadi ha ka gaarto muxuu ahay golaha shacabka iyo xildhibaanada ku jira mas-uuliyadda ballaaran ay ka muuqdaan. taariikhda dadka reer Banaadirna waa arrin hore u socotay. runtii muddo dheer ayaa lagu taamayey arrimahan in ay soo socdaan, ay soo dhaqan galaan, waana lagu guulaystay. arrintaas waxaan leenahay dadka reer Banaadir waxaan leenahay hambalyo in maxaankoodaayay ay sidaas sameeyeen. xildhibaanadana waxaan leenahay waa mahadsantihiin. hase yeeshee abaalka dadaalkaas weyn oo ay xildhibaanada galeen oo ay ka dhex galeen golaha shacabka iyo aqalka sare ee muxuu ahay baarlamaanka in si yar oo raqiis ah dad siyaasadaynaya ay u dafaan oo ay u qaataan macquul ma aha. juhdi dheer oo muddo dheer la soo sameeyey, dadka reer Banaadir ay u dul adeegeen, samir iyo dulqaad ay u yeesheen. dadka kaloo ayaga la mid ah muddo dheer ay dul qaadan waayeen oo mar horeba ay ku carareen amuurahooda, laakiin ayagu ay muddo dheer ka soo dul qaateen ayay ku timideen arrintaas. marka waxaan leeyahay arrintaas waa hambalyo, bogaadin dadka reer Banaadir iyo xildhibaanada labada aqal ee maxaan ku raadaaye baarlamaanka federaalka Soomaaliya intaba aad iyo aad ayaan u hambaleynaa. waa guul u soo hoyatay Soomaaliya guud ahaan iyo gaar ahaan dadka gobolka Banaadir. hase yeeshee waxaan rabaa inaan wax yar iftiimiyo waxa dhiman. taasi waa guul la gaaray aad iyo aad u habboon, qiimaheeda leh, laakiin waxa dhiman inaan iftiimiyo si aan u sii wadno dadaalkeenna oo aanan u dhihin wixii la rabay waa la helay. sida ku cad dastuurka ku-meelgaarka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, aqalka sare wuxuu matalaa dowlad goboleedyada ama dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayuu matalaa. nidaamka federaalka ah ayuunu ku salaysan yahay sidaa daraaddeed baahida dhabta ee gobolka Banaadir waa inuu helaa maamul ay soo dhisteen dadka tirada badan ee deggan gobolka si matalaadda aqalka sare ay u noqoto mid dhaba. maamul waa inay dadkan helaan ayagu ay soo dhisteen, ay doorteen, mas-uuliyaddiisa ay u dhiibteen, sharciyada uu ku shaqaynaya ay ansixiyeen, raalli ka yihiin oo taagan. markaas ayaa muxuu ahay matalaadooda aqalka sare ay si buuxdo oo dhab ay u noqonaysaa. baahida ugu weyn ee dadka reer Banaadir ay qabaanna waa maamulkaas, matalaadda siyaasiga ah bas ma ahan. dadka reer Banaadirna maamulkaas markay dhistaan si ay ugu hoos noolaadaan hoggaan ay raalli ahaanshahooda ku soo dhisteen oo uga mid noqdaan nidaamka iyo saabaanka federaalka ah ee dastuurka ku-meelgaarka uu tilmaamayo. markaas
ayaa muxuu ahay hawshu alla dhigi karaa meel ay la siman yihiin dadka intiisa kale iyo gobollada iyo dowladaha ayay ugu dambayntii waxaa kaloo dadka reer banaadir u rajaynayaa inaan indhahooda laga sii jeedin qadiyadda dowlad dhisidda ee dadka gobolka banaadir degan qiimaha badan ugu fadhido dadkaani maalintii dowladdii ugu horraysay ee ku-meelgaarka ee dalka loo sameeyey 2000 ilaa maanta ayay garab taagnaayeen dowlad dhisidda dalka soomaaliya xoogay ku bixiyeen xoolo aad u baran ay ku bixiyaan welina ay ku bixiyaan si dalka soomaaliya oo dowlad u yeesho marka waxaan leeyahay qadiyaddaas kale oo muhiimka ah oo qiimahaas badan ugu fadhida dadka reer banaadir inaanay ka ilduufin oo aan inta muxuu ahaaye indhasarcaad kale meel kale nal looga shido aanay ka mashquulin ayaan muxuu ahaaye ayagana aan ugu baaqaya qadiyaddaas oo maanta taagan meel isgoys ah oo khatar ah oo haddii jid qaldan ay qaaddo dhibaato badan ay ka imaan karto haddii jid saxan ay qaadane dadku ay ku naaloon doonaan soomaaliyoo dhan guud ahaan gaar ahaan maxaanku idhahdaa dadka ku nool gobolka banaadir qadiyaddaas oo maanta taagan isgoys khatar ah kadib markii hoggaanka hadda talada haayo uu si bareera u diiday 2 arrimood oo aad iyo aad muhiim u ah qadiyadda isgoys khatar ay taagantahay mugaan leenahay waxay ku salaysan tahay 2 arrimood waxaa si aan qarsoodi lahayn u diiday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya wuxuu si qarsoodi aan lahayn u diidan yahay nidaamka federaalka ee soomaalida cusub ku heshiisay inay dib ugu dhisato dowladnimadooda waana lahayaa markhaatiyaasha arrintaa ka caddaynaya qabashada doorasho heer qaran waxaa kaloo diidan yahay qabasho doorasho heer qaran ah oo heshiis lagu wada yahay si loo helo kalsoonida heerka labaad ee federaalka ee ah dowlad goboleedyada iyo dadka ku nool in ayadana muxuu ahay ay waxaysan yihiin labadaas arrimood marka waa 2 arrimood oo maanta soomaaliya meesha isgoyska ay taagan tahay go'aanka laga gaaro ay dib ay ku leexi karto waddadii saxdeed